suugadeeni waa kaasa chickenkeeni inkastoo chickenka markii aan hagaajinayay oo idin dhaafay yani markaa dubaay leh dib ma lahan waa kaasa salarkii cabitaankii maasha Allah qadada maanta waa taasaa intaas idin la wadaagay basta huuriskaas la insha Allah khayr alaykum asxaabi soo dhawaada meel kasta aad joogtaan waad salaamantiin dhamaantiin maanta maxaan sameysanaynaa insha Allah qadadaas oo ka kooban baastadaas oo ah baasta dheer ab Soomaali lihingaadinaya baasta dheer insha Allah baasta dheer oo aan loo kala karinaynin suugo iyo kii waa la karinaa bad isku karis insha Allah ma ahan oo caadi laakiin baasta huuris ay noqon doontaa way la arki doontiin insha Allah baastadeena stepkeeda koobaad wuxuu ka bilaabanayaa halkan insha Allah ta'ala meeshan waxa iigu jiro chicken waaye chickenka oo lugaha waaye barafka waa fridge-ka soo bixiyay soo insha Allah waa karinayaa chickenka koob biyan ku karinayaa biyaha markuu ku karsamo ka bacdi insha Allah waa hagaajinaa waxyaaban ku dardaraa kadibna dib ayaan hadan insha Allah aan u shiilayaa way la arki doontiin haduu ilaahay soo dhawaada maxaa sugaysiin asxaabta qaaliga noo bilaabo insha Allah teena qaaliga waxay nooga bilaabanaysaa suugadeena insha Allah sidaan suugadeena halkan waxaan ku haysanaa basal halkaasna waxaan ku haysanaa yaanyo meeshan waxaan ku haysanaa tomato oo bacdi iyo gasac mid arto isticmaali kartaa isku mid waaye toon iyo kabsar iyo barbarooni waxay iga dhiman basbaas laba xabba insha Allah suugadeena waa taas insha Allah saa u karsanayno isla arki doonaa hawsha hadda bilowtaa haduu ilaahay isla socod wanaagsan asxaabta qaaliga asxaabteena waa kana waa diyaarsan alaabtii wax ku karsan lahayn yaanyadii iyo basashii waa taas waa soo jartay wax yar oo kabsar caleen iyo basbaaskii aan ku dhex jaray rabaa inaan kula shiilo meesha maxaa iigu jiro hal xabo oo cambe hal xabo oo liin macaan ama liin unji iyo laba xabo oo passion aan ku dhex shubay cabitaan juice ka sameysanaynaa insha Allah meeshan maxaa iigu jiro basal iyo barbarooni iyo kabsar iyo toon basasha iyo barbarooni waxaan ka rabaa insha Allah suugada marka ugu dambayso oo ay bislaato haduu ilaahay ka raali noqdo aan korka uga darsanayo insha Allah waxaan shishiidkeena waa meeshan oo yaalo insha Allah la ha socoto hawsha way sheekada suugadeena saaran yani dabka hadda saaranayna insha Allah maxaan u taala halkan birta aan ku karsan lahayn ama maqligiisa qof walba yaqaano waxaan ku shubanay saliid yar aan badnayn saliidii suugada aan ku karsanayno insha Allah asxaabteena saliidda waa noo kululaatay waxaan ku shubanaynaa insha Allah basashii iyo yaanyadii iyo basbaaskii kabsartii yartaa isku jiray bismillaah birtan waxaan ugu karinayaa waa digsi ama waxaas u isticmaalaynin birtan waxay u shiilaysaa cuntada si fiican ay u karinaysaa u shiilaya soo saasa ku jeclaaday maasha Allah waa kaasa hadda waxaan isku soo noqon doonaa insha Allah waqtiga qaadana inta shiilmayso yaanyo qudaartan markay shiilanta maxay ahaato bislaato insha Allah isku soo noqonayna asxaabteena suugada waa noo karsamaysaa waa taasa yaanyadii wali ceerin waaye laakiin way karsamaysaa insha Allah xaggana maxaa noo saaran chickenkii loo karsamooyo waaye biyaha ku karkarooyo maxay ahaato haddana waxaan shiidanaynaa cabitaankeena insha Allah intaas suugada noo sii karsamaysa cabitaankeena si shiidanaynaa biidnillah taala soo bismillah noo bilaa asxaabteena cabitaankeena diyaar waaye waa miiranayna insha Allah asxaabteena waxa ku darsanaynaa insha Allah haaf maraq digaag iyo hal xabo oo reeke iyo wax yar oo cusbo suugadeena sababtoo ah maraq digaaga marka ku darto suugada waxa waa dhaqso oo ku bislaanaysa ma aqaan sababta laakiin si fiican oo dhaqso ku karinaya oo way waxa la dhahaa ma sheegay
كجذوب محل ده يعني دخسو كرنايا وبوبسينا يا عمل وقت ما يسمع من قناص كعنين إلى يداهم ودرا كل وقدار بالهاي اللي جكن لا نسمع ما نقانا حرمت إحيلها نلو ما شاء الله شو كذا وقت صار عاير يعني العانة ده اللي سامك عبار صار مالك إذا إسكت قلل دمت إن شاء الله مركي قلشوا إسل أركينا أصحابتي suugadeena way soo yara bislaatay oo soo shiilmaysaa haddana waxaan ku darsanaynaa insha Allah shiishiidkii haafaan ku darsan doonaa insha Allah intiska badan ma rabo inay kalar intiska badan yeelato insha Allah intaas inaafaayo hadda way soo bislaanaysaa way soo yara maaragtaa qalaysantay suugadeena waxaan rabaa suugada markay si fiican u bislaato inay sida hilibka oo markii la shiilaayo oo kaleeto ay noqoto hilib geelka ama hilibka oodkaca inay saliidda soo tufto yani si fiican u bislaato saasay ku cadaynaysa inay suugada diyaar tahay markaas asxaabteena waxaan ku darsanaynaa kabsartii iyo toontii noo timid insha Allah هاد suugadeena diyaar waaye waxay ka bacda ku dibsanayna insha Allah waxaan saaran doonaa baastada asxaabteena waxaan ku darsanaynaa 3 xabo oo qorofal ah insha Allah si ay noogu carafto suugada waxyaraan daboolaya 5 minutes ka yar insha Allah kadibna waxa sameeynaa waan ka dajinayaa kabacdina baastada saaran doonaa biilayra asxaabteena hadda waxaan sameysanaynaa chickenkii aan biyo ku karkarsanay ayaan biyo kala bixinaa insha Allah si aan u shiilano oo u diyaarsano oo karsamay sababta chickenka hadii aan karin oo marka hore biyo aad ku karin adoo baraf ka soo bixiyo fridge ka soo bixisay maxay ahayd hadhow wuxuu yeelanaa dhaxdoo qoyaan ama biyo ka yeelanaa oo dhacaan ka bixinaya haddii sidiisa ku isticmaasho ku dubto yani oo aadan karin aad dubto waaye ma fiicno marka hore waxaa samaysaa kari wax yar oo time yar u baahan yahay biyo iyo cusbo yar leh bas dabka ku saare maasha Allah marka wax yar ku karsano kabacdi hadhowna si fudud oo kuugu shiilmaya oo si qurux badan ah waliba insha Allah waa kaas hadda uu karsan yahay saliidana dabkana wax badan ma qaadanayo asxaabteena suugadeena waa ka dajisanay waxaan saaranay baastadii haddana waxaan hagaajisanaynaa insha Allah chickenka asxaabteena hadda waxaan rabnaa inaan hagaajisano chickenkeeni waxaan rabnaa hal xabo oo ukun ah waxaan ku darsanaynaa wax yar oo color ah food colorka caadiga oo yelowga waxaan ku darsanaynaa basbaas waxaan ku darsanaynaa wax yar oo huruud ah wax yar oo filfil ah filfish waa tii oo budada ahayd wax yar oo ah kii ishak maxaa la dhahaa wuu iga dhamaaday mid wax yar oo waxa ku jiray oo waa kan chickenka loogu talagalay waxaan ku darsanaa liin dhanaan jeex waxaan ku darsanaa kabsar caleen iyo toon waxaan ku darsanaa wax yar oo reyka haaf yar iyo wax yar oo maraq digaag ah sababta cusbo aan ku kariyay wax badan ma ku daraa insha Allah
waxaan ku darsanaynaa bur wax yar oo aan badnayn insha allah. waxaan sameynaa isku qasaya intaan waa isku qasay saasay noqotay. waxaan ku dhex shubanaa marka chickenkeyga insha allah. waa aragtaan soo ma asxaabta asxaabteena wax yar oo noo oolaya insha allah. after 5 minutes inta saliidda noo kululaanaysa aan saarnayna insha allah. intaasna baastada sii karsanayna asxaabteena. waxaan sameynayaa baastada biyaheeda dabka ii saaran. waxaan ku darsanayaa insha allah wax yar oo saliid ah si ay baastada aysan isku qaqabsanin. in yar insha allah intaas enough. waxaan ku darsanayaa cusbo. asxaabteena biyo baastada waa noo karkaray. waxaan ku shubanaynaa nus kiilo baasta insha allah. asxaabteyda saa hore idinkugu sheegaba baastada mar haddii aad ku darto saliid wax obaalkiya ma lahan, cabsiya ma lahan, oo kama wisusaysid in ay isaga kaa dhegdhegto. shaqadaada markaa soo dhamaysatay anytime aa imaanaysa ayaa isleedahay waa ku bislaatay timeka intaa fiirsatid. asxaabteena hadda waxaan ku shubanaynaa insha allah chickenkeeni. hadda ku shubanaynaa noo karkarta saliidda weli zaaid oo kululaatay. hadda baastadii ayaan samaysanaynaa insha allah. waxaan hoosta ku shubayaa saliiddii. baastada waa kasoo gidiyey, waa soo miiray. chickenka markaan ku shubayana kaamirada iga istaagtay ma ogan, keliga wax sameynaya raalli ahaada. chickenka hadda already waa ka bixiyay, diyaar waaye. waxaan sameynaynaa marka insha allah saasaa kusoo wada marinaa. hoosaan kasoo mariyey, baastaan ku shubay, haddana waa ku shubay, waa mariyey. haddana qayb kalaan saaraya, kadib korkaan ka marinaa insha allah. raalli ahaada waxaa iloobay basashii iyo barbaroonigii. qayb walba saasaa ugu shubaya insha allah. la socdo markaasaa waa qaybtii ugu dambeysay insha allah. wax yar dabka kor iyo hoos oo ofan yar ku gelinaya 5 minutes. inkastoo xoogaa yar baastada moodin iga yara jilcada, baastada iyadan jilcina fiican. isla socdo wanaagsan asxaabteena. waa taasaa baastadii haddaan dabka kasoo baxsanay maasha allah. hadda ku gurinaynaa insha allah. asxaabteena waa taasaa baastadeeni. waa kaasaa chickenkeeni. inkastoo chickenka markii hagaajinayay oo idin dhaafay, yani markaa dubaaya leh dhib ma lahan. waa kaasaa salarkii, cabitaankii. maasha allah qadadii maanta waa taasaa. intaasaan idinla wadaagaya baasta huuriskaas leh insha allah. khayr aad ii rajeynaya. haddii asxaabta aad ka heshaan muuqaalkan sii share gareeya insha allah. subscribe na dhaha, commentigana nagula wadaaga ra'yigiina. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.